Bal ka waran sidaan oo kale hadday kugu dhici lahayd. Waxaa maalin maalmaha ka mid ah adoo waddada iska socda aragtay gabar waddada taalo. Waana soo qaaday waxaadna keentay isbitaalkii kuugu dhowaa. Baaritaan dheer kadib markii lagu sameeyeyna qoftii dhakhtarkii asigoo dhoola caddeynayuu kuu yimid wuxuuna ku dhahay hambalyo uurey kuu leedahay. Adigana indhaha intaa taagtaagtay waxaa dhahday laakiin aniga cunugaas ma lihi. Balse qoftii soo booday iyadoo qayli iyo oohin isku diraysa waxayna dhahday adiga cunugan aabihiisa ee ha isku day inaa cunugaaga inkirtid. Adi buuq dheer kadibna dhakhtarkii go'aansaday inuu baaritaan ku sameeyo. Ugu dambeyntii dhakhtarkii natiijadu u soo baxdayna waxay noqotay canugan ay wadato horta qofta inaadan adiga dhalin. Qoftaana ay tahay qof beenley ah. Teeda kalena adiga inaad tahay qof madhaleys ah. Adi intaas kadibna isbitaalkii waa ka soo baxday adigoo faraxsan haddana murugsan. Tan koowaad waa faraxsan tahay waayo waxaa la ogaaday inaad tahay qof beri ah. Tan labaadna waxaa ka xanaaqsan tahay in lagu dhahay waxaa tahay madhaleys. Laakiin arrinta waxaasoo dhan ka daran waxay tahay inaad xaaslo tahay oo weliba 3 ilmo kuu joogaan. Adigoo shakigaas kugu jiro xanaaq daranna dareemayo. Hal mar waxaa ka soo kacday hurdadii. Wixii oo dhanna waxaa ogaatay inay ahaayeen riyo. Waadna ku farxda waayo waxaasoo dhan waxay noqdeen wax khiyaali ah. Waadna soo istaagtay waxaana soo qabsatay galaas biyo waana cabtay. Laakiin waxaa xasuusatay inaad sonneed. Adiga waa ka socotay arrintaas waxaana fiirsay saacadda xilliga taasaa u ogaatid. Laakiin waxaa ka hor heshay inaad maanta shaqadii ka daahday. Adi waa soo degdegtay taxi aana soo qaadatay. Adi markay xarunta shaqada imaadayna waxaa xasuusatay in maanta ay tahay maalin Jimco ah eena wax shaqo ah jirin. Adigoo qaabdarradaas iskala yaaban waxaa ku soo laabatay gurigaagii. Saa u weyse qaadatid oo salaada Jimcahan u aadid. Ugu dambeyn adiga hadday tan oo kale kuugu dhici lahayd ka waran.